bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine iyo sidoo kale baraashka qodobada aan idinku soo gudbi doonana barnaamijyadan idinku soo maqanna waxaa ka mid noqonaya xasuuqii ugu weynaa uguna darna ayaa loo geystay ciidamada u dagaalamaya Ukraine ugu badnaan 40 ayaa laga dilay sidoo kalena ku dhawaad tiradaas ayaa laga dhaawacay guul weyn ayay sheeganayaan Moscow faaqidaad ayaynu daawadayaal ku sameyn doonaa maxaadan ogeyn daawade oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qayb ka tirsan Ukraine barnaamijkan kaga bogo xogo iyo sidoo kale macluumaad Vladimir Putin xaaladda ayaa ku xun waana uu niyad jabsan yahay waxaana la soo warinayaa iminka in uu ciidamo ku biirinayo iminka ay fududahayba in lagala wareego oo gacanta ay ku dhigaan ciidamada wadanka Ukraine faaqidaad ayaynu daawadayaal saaxiibayaal ku sameyn doonaa niyadda Volodymyr Zelensky sidoo kale waynu eegi doonaa iyo xaalkiisa sida uu yahay ciidamada la dilay Ukrainiyaanka meedadkooda ayaa la soo warinayaa inay daadsan yihiin wadooyinka oo xitaa dadkii loo diiday in la qaado saraakiisha hogaaminaysa ciidamada wadanka Ruushka maxay sameynayaan waynu islaamba qaadi doonaa saaxiibayaal arrimo ka baxsan bini'aadanimada ayaa laga soo warinayaa magaalooyin ka tirsan Ukraine hadaba arrimahan oo idil waxa ku kacaya ciidamada wadanka Ruushka iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaysa ma dhaba mise jirta in amarka arrimahan oo idil uu ka soo baxayo Kremlin isla markaana Vladimir Putin oo amarkaasi siinaya saraakiisha iyo sidoo kale ciidamadiisa u dagaalamaya faaqidaad ayaynu ku sameyn doonaa daawada saaxiib meel waliba ay joogto soo dhawow muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo bir subscribe inoo saar channelka program breaker si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inagu reeb markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay inuu ku bilaawno saacadihii la soo dhaafay waxa la soo warinayaa in duqeymo xoogan ay ka dhaceen qayb ka tirsan wadanka Ukraine magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Ukraine ayay duqeeyeen ciidamada Moscow duqeymahan ayaa waxay geysteen khasaarooyin aad u fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirooyin fara badan oo asgar ah oo ka tirsan ciidamada wadanka Ukraine ayaa lagu dilay duqeymaha ciidamada wadanka Ruushka ayaana sheegtay guulo muhiim ah oo ku aadan gantaalada ay ku duqeeyeen goobahan ka tirsan wadanka Ukraine madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu leeyahay xaalka ayaa nagu xun dhibaato adag ayaynu dhex dabaalanayna mana u dulqaadan karno gantaalada ee saacadba ka saacad ciidamada wadanka Ruushka ku garaacayaan magaalooyinkeena ku yaala dalkeena hadaba ayna la soo gaaro hub iyo sidoo kaleba saanad military ayuu leeyahay Zelensky reer galbeedka ayuu baaqu diraya waxa uu ka codsanayaa in ay markaan ay tahay xilligii ugu mudnaa ee la taageeri lahaa wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky isaga xaalka ayaaba ku xumaa markii hore waxaana warbaahinada ay ahaayeen kuwa aad u rogrogaya ninkan xilli ahaan jiray majaajiliste Volodymyr Zelensky ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ka baaqsaday inuu hor yimaado saxaafadda isla markaana uu caawimaad ka dalbado ama taageero hub ka dalbado wadamada reer galbeedka NATO iyada ilaa iyo hadda uma dhaqaaqin in ay Ukraine caawiso waana ay ka cagajideysaa wadamo fara badan oo quwad ama awood isku og ayaa sidoo kale jira oo aan ilaa iyo hadda isku taxallujin in ay wadanka kaniisamada bixiyaan oo ay ciidamada wadanka Ruushka ku soo duulay ka difaacaan 400 oo asgari oo Ukrainian ah ayaa la soo warinayaa markan in la dilay oo markaasiba qodda laga jaray in ka badan 400 oo asgari oo Ukrainian ah ayaa lagu dilay weerar uu Ruushku ku qaaday saldhig ku meel gaar ah oo ay ciidamada Ukraine ku leeyihiin gobolka Kherson sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka ninka lagu magacaabo Lieutenant General Igor Konashenkov duqeymo ay fuliyeen ciidamada cirka Ruushka oo ay ka fuliyeen goobo kala gedisan oo ku yaala Kherson ayaa markaasiba lagu garaacay ayaa lagu yiri warkaan saldhigga ku meel gaarka ee guutada 46 ee hawada ee ciidamada qalabka sida Ukraine in ka badan 400 oo wadaniyiin ah ayaa lagu dilay ayuu yiri Igor Konashenkov sida laga soo xigtay Konashenkov duqeymaha cirka ee Ruushka ayaa lagu dilay in ka badan 70 asgari Ukrainian ah gobolka Kherson ciidanka hawada sare ee Ruushka waxay duqeeyeen goobaha dagaalka ee guutada 105 ee ciidamada qalabka sida Ukrainiyaanka
ee 63aad ee Mechanized Brigade meel u dhow Andrevyaski oo markaasiba sidoo kalena u dhow meesha la yiraahdo Lozovaye iyo sidoo kaleba Dolkovaye oo ka tirsan gobolka Kherson. waxay dileen in ka badan 70 wadaniyiin ah waxayna markaasiba ka tageen ilaa 150 dhaawac ayuu yiri Ekor Konezhongov. dagaalada ayaa waxay yihiin kuwa joogta duqeymaha ayaan kala joogsanayn oo waxay yihiin kuwa saacadba ka saacad ka dhacaya gudaha wadankaasi Ukraine. Kherson oo muddooyinkii la soo dhaafay aad u deganeed ayaa sidoo kale haatan waxay tahay mid aanan loo aabayeelin waxaana duqeymihii laga fulin jiray iminka yihiin kuwa ku socda. waxaa iminka 400 ee laga dilay Ukraine saameyn xun ay ku reebaysaa ciidamada u dagaalamaya wadanka Ukraine waxayna leeyihiin waynu dhimanaynaa dawladeennana iskuma taxallujinayso in ayna siiso wax aynu ku dagaalgalno. 400 ee la dilay waxaa la soo warinayaa sidoo kale in 150 ka mid ah ama markaasiba 150 ka banaanka ayba yihiin dhaawacyo. waxa ayna intaba ahaayeen kuwa lagu dilay duqeymo cirka oo ay ciidamada wadanka Ruushka ka fuliyeen markaasiba halka la yiraahdo Kherson. cutubyadan military ee ka tirsan Ruushka ayaa waxa ay sameeyeen dadaalo xoogan waxaana dadaaladan soo dhaweeyay Kremlinka. Master Vladimir Putin hogaamiyaha wadanka Ruushka ayaa arintan waxa uu ku tilmaamay mid geesinimo leh waxa uu ku bogaadiyay ciidamadiisa waxa uuna ugu baaqayba inay sii wadaan oo ay sii dardargeliyaan howlaha military ee ay ka fulinayaan gudaha wadanka Ukraine. magaalooyin dhowr ay gacanta ku hayaan oo markaasiba Kherson xitaa qayb ka tahay laakiin waxa la soo warinayaa in iminka xaalku uu ku xun yahay ciidamada wadanka Ruushka oo dagaalamaya. xaalkana waxa ku sii xumeynaya ayaa la leeyahay ciidamada wadanka Ukraine oo soo laba kacleynaya waliba adeegsanaya gantaalo oo ayaga markaasiba aanan ka yareen kuwa ay adeegsanayaan Moscow. Mareykanka ayaa ku taakuleeyay Ukraine gantaalo casri ah waliba gantaalada loo yaqaan HIMARS-ka waxa ay gantaaladan laga soo qaaday Washington iyadoo laga soo dejiyay Kiev. ugu dambeynna waxa uu suurta gashay leeyahay ciidamada wadanka Ukraine in ay si toos ah hubkani ugu tababartaan isla markaana si toos ay ugu adeegsadaan dagaalka culus ee kala dhaxeeya ciidamada wadanka Ukraine. lama oga halka uu dagaalkani ku dambeyn doono iyo halka uu saldhigan doono iyo sidoo kale sida ay noqon doonto natiijada miradhalka ee ka soo baxda balse indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda dadka odoroso siyaasadaha caalamka gaar ahaan tan bariga dhexe ayaana waxay yihiin kuwa aanan marnaba markaasiba ka joogsanayn ka hadalka arrimaha ku gadaaman labadan dal ee Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. wixii warar oo ku soo kordha daawadayaal saaxiibayaal barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. daawada saaxiib muuqaalkan like saar sina share garay nagu soo biir subscribe inoo saar channelka faraga malaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsan tahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.